بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا الصحافة أنا قاعدين يرني أنا وشير شرايد هل كان قبانينا أو حبنا كترسن هجان كحزب كلمية قدومي كحيان كلابات محمد حاج يوسف وابي يعني هو قدومي كحيان كصدحات عبد الرحمن محمد تلينله وحال كان لا فديا حبنا كترسن قديده فلنته حزب كلمية انت هدان كغدبو anigoo taa idinka mahad celinaya imaatinka aad noo timaadeen waxa aan jeclahay inaan halkan xoog warrana xilkiina saaraa aad ummaddu noo igmatay inaan xoog warrana ka siino waxayna ku bilaabantay anagoo sanad iyo badh xisbiga ka maqnayn uga maqnayna cadaalad darri dhexdiisa ka jirta oo xukunkii la iska marorsaday ayaa maalmaha kamid ah aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad maxamed kaahin anagoo airportka joogna waxaanu isla soo hadal qaadan inaanu iscanaanno war sidan si maahe maadaama doorasho soo dhowdahay degdeg aynu u kulanno waa maalintii madaxweynuhu imanayay taa markaanu isla qaadanay labada murashax ee hoggaanka ka tirsan dib baanu u dhiganay afartayadii kale oo aniga iyo maxamed iyo waabe iyo xasan saciida hoteelka Lake Casal maalin labaadii ku kulanay arintii baanu isla qaadanay madaxweynaha laftiisu markuu yimi isagoo oo madaarka ka hadlay oo uu yiri xisbigu waa xisbi dimuqraadiya aniguna tartankiisa dhex baan ka ahay waana loo baratamayaa waxa la diyaarinayaa saaxadii lagu kala hadhi lahaa shirkii 10 November qabsoomayna waa in lagu sii talagalaa dadka loo sii bisleeyaa registrationka la dhameeyaa madaxweynaha waanu is aragnay maalinta aanu is aragnay gelinkii horena gudoomiyaha xisbiga ayuu saacadii hore la kulmay iyo habeennimadii ka horeysay labada geesoodba wuxuu u bisleeyay in saaxad kulmiyanimo ah oo cadaalada oo Britain xoro xalaala in la diyaariyo annagana sidii uu noo sheegay gudi ahaan buu noo magacaabay wasiirka gaashaandhigga Axmed Xaaji Calina waa nagu xoojiyay wuxuu yiri waa arkiifyada maadaama uu kongareeskii gudoomiye ka ahaa wixii tala iyo tusaale ana uu idinku biirinaya shantiina si wada fadhiista galbis baanu ku tagnay xisbiga maxamed kaahin iyo xasan saciid shirkii uu noo bilaabmay odaygiina markuu noo faatixiyay wasiirka gaashaandhiggu waa naga tagay run ahaantii halkaa maalinta wixii ay hore u qabteen naga horeeyayna waanu ku bogaadinay waxaanu nidhi hawl baad qabateen kaliya waynu kala maqnaynay maadaama aynu kala maqnayn oo hadda taladii la isku soo gaadhay ragga technicianska ee hawsha wadaana waa raggayagii hadday tahay Mustafa Waxdad hadday tahay xildhibaan Maxamuud Jaamac Warfaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa hawshii aad qabateen kaliya maadaama aynu kala maqnayn oo laba garab kala ahayn si hawshu u fududaato annana waxaanu soo magacaabaynaa laba xubnood oo xoojina oo nimanka technically la shaqeeya wixii hore u tagay na review gareeya waxa soo socdana finishing touches sameeya marka tirada golaha dhexe isdiiwaan gelisay 150 iyo meelahaas marisay markii aanu taageerayaashayadii niri ka qayb gala registrationka maalintii labaad 250 bay ahayd maalintii saddexaad 300 wax la jiray gaadhay run ahaantii annaga oo xusnaniye jecel in aanu u diyaarino murashaxiinta saaxad ay ku kala baritamaan oo golaha dhexe marka xisbiga kulmiye uu ku soo doorto murashaxa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen waxay ka suurtageli weyday garabkiisii fadhiyay meesha diidayna inaan xubno ku daro si transparency meesha uga muuqato waxa ayaan dara ah hadiiba aanu arintaas soo hadal qaadnay dhaar iyo fadhiga oo ay ka kacaan inay ka xanaf siiyeen
waxaa markaan ujeeddada ku soo dhowaado waxaanu ku nidhi run ahaantii idinkuna garabbaad ahaydeen murashax baad leedihiin annaguna waanu idinka maqnayn murashaxiin baanu leenahay sidee baa xeega u noqotaabaa layidhi ilkana u nabadgalan sidaynu isu aaminaa taageerayaal badan baanu leenahay golaha dhexe aqlabiyadiisii iyo guddidii fulinta aqlabiyadeedii intuba annagay nala jiraan waana kuwa xisbiga ka maqnaa maanta haddaynu wax isku darayno oo xisbigii midaynayno wax lagu wada caloolsan yahay waa inay meesha ka dhalataa taasi waa ka suurtageli weyday waa diideen weliba guddoomiye ku-xigeenka koowaad wuxuu soo jeediyey proposal wuxuu yidhi aniga waxay ila tahay maalintii hore markay deadlock noqotay oo maalintii labaad aanu ismari weynay aniga waxay ila tahay 2 xubnood waa guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo xogayaha guud inaynu ku xoojinno nimanka iminka hawsha wada taasi waa mad talabaad optionka labaad waxa weeye inaynu kalaba wareegno oo inagoo ah hoggaanka shaqadaba la wareegno oo maadaama aynu inagu nahay hoggaankii xisbiga wixii horena wada review garayno waxa soo socdana wada daadino tii waanu la qaadanay waxaan ku yidhi optionka labaad mar haddaa aad diideen in 2 xubnood aanu ku xoojinno nimanka optionka labaad ee ah in aynu la wareegno inaga kaadirkii iyo taageerayaashii iyo golihii dhexe ee xisbiga iyo guddidii fulintuba intuba ina sugayaan inagoo hoggaankiya aynu la wareegno hawshiina gallo tiina marka unfortunately way la qadhaadhaatay guddoomiyaha proposalkii uu soo jeediyey dib u gurashuu bilaaba arrintii halkaa markay gaadhay aanu isla dhaafi weynay qodobkii u horreeyey ee ahaa sidii hawsha loo daadihin lahaa ee ay qir iyo qir noqotay run ahaantii waanu ku kala kacnay sidii baanuna ku kala maqannay waxaanu u sheegaynaa taageerayaasha xisbiga kulmiye in arrintu ay ka socon weyday ragga maanta xaruntii xisbiga fadhiya ee le waxbaa transparency oo jira wax ka jira ma jiraan taagunta annagaa soo xaadhnay waxbay huurinayaan waxbay dul fadhiyaan waxbay qarinayaan run ahaantiina markaanu isla eegnay xubnaha golaha dhexe difference noo dhexeeyey ma jirin 307 iyo 387 iyo 390 oo tirada guuda ayay ahayd laakiinse technically in hoos loo digo dadkii dhintay dadkii ka baxay axsaab kala galay dadkii labada xil isku hayay xilka wasiirnimo iyo xilka beeleed sidii loo buuxin lahaa technically inaanu isaga nimaadno taa waa diideen meeshii waxay u ekaatay markaa nimanka odayaashii inay galbis ku hayaan murashaxoodii ay wakiilka ka ahaayeen ay doonayaan in la sii galbiyo la geeyo xarunta taageerayaasha xisbiga kulmiye ee golaha dhexe xubnihiisii intaba majoritigeedii halkanay joogtaa annagu waxaanu diyaar u nahay caburid ma ogolin wax la hadoodila ma doonayno wax transparency baanu doonaynaa madasha doorashadana waa tegaynaa cid nagaga nasiib rooni ma jirto kalsoonidii kaadirka iyaga iyo xubnihii golaha dhexaanu qabnaa laakiinse ummadda somaliland xisbiga kulmiye waxaanu u sheegaynaa marnaba sinaan cadaalad dimuqraadiyad inaan lagu hayn xarunta aanu soo aragnay gunteediina soo taabanay intaa waxaan kaga baxayaa kusoo koobaya waa mowduuca waxaan hadalka kusoo dhaweynayaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye